kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaad naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay adoo maxaa cusub kadib markii safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay shalayta soo saartay digniin la yaab leh oo ay sheegeen inay hayaan xog la xiriidha weeraro iyo qaraxiyo ay kooxda argagixisada shabaab doonayaan inay ka fuliyaan goobo muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho ay ka mid tahay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho wadamadii Soomaaliya ugu dhawaa saaxiibtinimada ugu wanaagsan lahaa sharafka Soomaaliya dhowr iyo 10 sano ka shaqeynayay inuu soo laabto ayaa joojiyay duulimaadyadii ay ku tagayeen garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho duulimaadyadii caalamiga ahaa ayaa si istaba jooga ay dalalku u joojinayaan iyagoo markaasi fulinaya ama raacaya digniintii Mareykanka safaaradda Mareykanku ay soo saartay ee la xiriiday garoonka aadan cadde in weeraro iyo qaraxyo ay ku soo wajahayeen garoonka kaliya maaha xarumo muhiim ah ayaa ka mid ah xarumaha ay digniinaha ka bixiyeen haddaba ceebtan iyo fadeexadan iyo arrintan maanta dhacday sumcad dilka ah ee isa soo taraysa ayaan qaybta ugu horeeya muuqaalkeena ku dul istaagaynaa dhinaca kaleeto waxaa iyadana isa soo taraya digniinaha iyo sidoo kaleeto war-saxaafadeedyada ka soo baxaya siyaasiyiinta ugu mug iyo maamuuska waaweyn Soomaaliya ee markaasi ku aadan dagaalka ka socda shabeellada dhexe ee asbuucyadii la soo dhaafayba tusbax furtay noqday ummadda Soomaaliyeedna fajac iyo la yaabka ku noqotay hal maalin gudaheed oo dhowr iyo 10 deegaan iyo degmooyin waaweyn ay ku qabsadeen kooxda argagixisada iyadoo waliba la dul fadhiyo caasimadii dhannayd ee maamulka Hirshabeelle iyo caasimadii Soomaaliyaba 25 kilomitir meel u jirta degmooyin u jira ayay kooxdu la wareegeen sida wada ogsoonayba waxaa dagaalkan ka hadlo baaq ka soo saaray Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ah madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam isagu tiisa si gaar ah ayaan iyadu u qaadi doonaa warqadahan dagaalada deegaanada ka socda Hirshabeelle iyo Puntland ee sida istaba jooga uu warqadaha iyo bogaadinta uga soo saarayo sidii islaan la qabo oo guriga joogta isagu gaar baan tiisa diiradda u saari doonaa laakiin siyaasiyiintan ayaa dagaalada Puntland iyo Shabeellada Dhexaba war ka soo saaray iyadoo xalitana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isagana war ka soo saaray iyadana waan dul istaagaynaa guddigii Axmed uu magacaabay Xasan Sheekh Maxamuud oo iyadana fadeexad weyn ay ka dhalatay waa guddigii Shabeellada Dhexe waxa way u magacaabay iyadana waa la isku haystaa waan dul istaagaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nagula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownee waxaan ogsoonay shalay inay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ay soo saartay digniin taasi oo la xiriidha in weeraro iyo qaraxiyo ay ku soo wajahan yihiin ama ay fulin karaan kooxda argagixisada oo ka fulin karaan waliba garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale xarumo kale oo muhiim ah safaaraddu waxay sheegtay in khatar weyn ay soo socoto oo la xiriidha weeraradii sida caadiyanba ay fulin jireen sidaa awgeed shaqaalaheeda ayay uga digtay inaysan isticmaalin garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho Mareykanku waayihii dambaba xogo badan baa soo baxayay oo la xiriira xataa hay'adii qaramada midoobay aan dhahnay Mareykanka uu lahaa USA la dhahayay inay la shaqeynayso argagixisada ilaa 40 milyan oo dollar sanadkii ay ku bixinaysay hay'adahaasi ay ku bixinaysaa dhahnay ururadaasi argagixisada si markaasi ay u fushato danaheedii hawlaheeda marka xogo badan oo la shaqeynta kooxdaasi iyo accesska u leedahay waa tuhno dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay qabeen marad badan ayay safaaradda Mareykanku ee magaalada Muqdisho ay soo saartay digniin noocan oo kala halka ay farta ku fiiqdo meel aan ahayn bayna ka dhacdaa ka soo qaad waxay tiri garoonkaadan cadde waa suurtagal in xerada xalana la galo waa suurtagal in madaxtooyada la galo waa suurtagal in ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa la galo waa suurtagal in la galo xarumaha dawladda hoose la galo xarun muhiim ah ayay galayaan kooxdu
ma aha markii ugu horeyso digniin noocan ay soo saareen marar badan bay soo saareen soo bay digniinta soo saareen waxay soo saareen xeebta liid ay soo saareen waxay soo saareen hotel SYL bay soo saareen hoteeladii kale ee madaxtooyada ku yaalay gaarkaday soo saareen digniinta markay sidan u soo saaraan meesha ay ka hadlaan ee ay dhahaan halkaaba wax ka dhacaya meel aan ahayn bay wax ka dhacaan arrimaha marka la isweydiin baa waxay tahay maxay tahay xiriirka ka dhaxeeya kooxda iyo safaaradda marka waxa suurtagala inay wax badan ay ka og yihiin dhaqaaqyada kooxda iyo sidoo kale qaraxyada waa suurtagal marka digniinta marka ay soo saareen waa wax macquul gal oo dhici kara halka ay laakiin sheegeen meel aan ahayn bay inta badan ka dhacdaan digniinta ay soo saareen ayaa fajac iyo la yaab noqotay oo ummadda Soomaaliyeed ay dhowr iyo 10 saac la soo dhaafay aad iyo aad loola yaabay sababtoo ah garoonka aadan cadde waa bilicdii ummadda Soomaaliyeed waxa way dawladda federaalka Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed way waa meeshii ajaanibta ay ka soo degayeen waa meesha caalamka waxa way ka qiimeynayay inta amniga ay heshay Soomaaliya ama inta uu leeyahay amniga Soomaaliya ay heshay hadiiba marka garoonkii la yiri qaraxyo iyo weerarada ka dhacay kala carray ay dhacday waa arin run ahaantii ayaan darro ah oo ceeb ah oo fadeexad ah oo waliba tusaale u ah maanta heerka aan marayno amniyaha laga qiimeyn karo way ceebta marka inta leeg safaaradda danaheeda ay fushanaysaa marka horeba dad Soomaaliyeed meesha uma joogin oo may fulinaynin dad Soomaaliya ay leedahay ma aysan fulinaynin waxay fulinaysay waa kala cararayo ummadda Soomaaliyeed inay burburto ayay meesha ka fulinaysay dawladdii Soomaaliyeed ilaa iyo hadda kama aysan hadlin arinta inta leeg ceebta kama aysan hadlin wax diyaar garow oo muuqda oo la sameeyay ma jiro madaxweynaha ra'iisul wasaaraha diyaaradaha kala raaceen oo waxa weeye wala kala shaxaa tagay ceebta inta leeg marka ee taagan ee intaan aan laga hadlin ee ina haysata ayaa intay rag waaweyn soo fadhiisteen oo media soo fadhiisteen bay oo warbaahinta caalamka ay taagan tahay baa waxa la yiri amaanka wax badan man ka qabanay ciidanka Soomaaliyeed ee dhul badan ay la wareegeen argagixisaan jabinay kan baa samaynay guulo waaweyn bay Soomaaliya gaarsiinay kanaan gaarsiinay bay leeyihiin bal ayaan darada intay leegtahay waa musiibo run ahaantii ceeb baa maanta dhacday oo ina haysata cid naga bixisaana inama hogaaminayso marka arintaas baa taagan iyadoo dhanka kalena digniintaas ku darsaday arinta ugu muhiimsanayd ee soo galay baa ama digniinta uu soo saaray Mareykanka wadamadii Soomaaliya ugu saaxiibtinimada ugu dhawaa sida Turkiga iyo Imaaraadka iyo wadamadii Soomaaliya saaxiibtinimada ugu dhawaa duulimaadyadooda waa joojiyeen diyaaradahoodii way kansaleen duulimaadyadii ay ku tagayeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sabab la xiriira digniinta safaaradda Mareykanka ay soo saartay musiibadaaba markay haysata dhaqaale badan aan ka helaynay oo waxa weeye sumcad badan aan ka helaynay diyaaradahaasi international ka ay tagayeen garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho duulimaadyadooda waa joojiyeen gabi ahaan waxa la yiri ilaa yaamar dambe ma tagaynaba la garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho bal ceebta fiiraadi bal fadeexada inta leegtahay bal inta adigu bal maanta waxayna haystay waxa inta si dheer duleedka magaalada Muqdisho ay kaariyo u saarayeen kooxda argagixisada ay fadhiyaan balcad argagixisada qabsatay maxay ku tahay in Muqdisho ay soo galaan bal adiga ay daawanayaan ku weydiiyay balcad argagixisada fadhiday maxay ku tahay in magaalada Muqdisho ay qabsadaan waxba kuma ceebtaaba maanta taagan dhinaca kale to siyaasiyiinta Soomaaliya waliba ay ugu horeeyaan madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed محمد عبد الله فرماجو حسن علي خيري عبد الرحمن عبد الشكور ayaa soo saaray baaqiyo kala duwan iyo sidoo kale war-saxaafadeedyo la xiriira dagaalada ka socda Shabeellada Dhexe waxa ay siyaasiyiintan si midaysan ay u taageereen dagaalka Shabeellada Dhexe ka socda ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula jiraan kooxaha argagixiso ee rogaal celiska ee dhulka tirada badan qabsaday asbuucii la soo dhaafay waxay sheegeen inay si mug iyo maamuus leh ay u taageersan yihiin dagaaladaasi oo ay si waxa weeye loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafid bala taageero iyadoo dhanka kalena ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed inay iskarab taagaan geesiyaasha ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee naftooda iyo dhiigoodaba u huraya la dagaalanka kooxda khawaarijta
waxaa intaasi sii dheer baaqyadaasi oo waxa weeye ay ku dareen in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo hoggaanka iyo sidoo kaleeto saraakiisha hogaaminaysay dagaaladaasi ama ku sugnayd baan dhahnay lugta ku leh hogaaminta ciidamada ku sugan shabeellada dhexe in dib u eegis lagu sameeyo waxaa sidoo kale ay fareen in madaxda dowladda federaalka iyaga naftirkooda isla xisaabtan lagu sameeyo si marka loo ogaado sababaha keentay rogaal celintan kooxdan iyo dagaaladan ay kula wareegtay deegaanada tirada badan waxaa intaas sii dheer axmed maxamed islaam hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ninka isagu baaq uu soo saaray naftigiisa oo wuxuu taageeray dagaalka shabeellada dhexe wuxuu horay u taageeray dagaalka puntland ma xuma waa muwaadin soomaaliyeed inuu dagaalka xaqa u taageero waa arrin iska caadi ah waa muhiim lama yaabani inuu taageero laakiin waxaa meesha ka marnayn axmed madoobe waa hogaamiyaha jubbaland sharci iyo sharci darro wuxuu ku fadhiyaba isagaa hadda talada haya deegaankuu joogo intay leeg tahay waxa weye yaraaya hal degmahaya laba degmahaya iyo in ka badan hayaaba waa hogaamiyaha hadda kursiga ku fadhiya dagaalka shabeellada dhexe waa taageeray midka jubbaland puntlandna waa taageeray deegaanada weerarada laga soo qaadayo ee abaabulka laga soo qaadayo ee ciidamada lagu soo tababarayo ee mas-uuliyiintu ay joogaan waa deegaanada uu sheeganayo uu leeyahay hoggaan baan anigu oo ahay uu leeyahay sidii gabadh la qabo islaan la qabo guriga looga soo tegey oo ninkeedu furimaha ku sugan yahay ayuu baaq soo diri oo uu leeyahay dagaalka halkaa ka socdaan taageersannahay dagaalka halkaa ka socdaan taageersannahay dagaalka halkaa ka socdaan taageersannahay mee isaga dhulku mas-uulka ka ah awey jubbaland mee xaggee aaday muxuu jubbaland uga hadli laayahay maxay jubbaland dagaal u qaadi laadahay maxay deegaanadeeda u xoreysan laadahay rag qayrkiia oo dagaal kula jiro argagixisiya cidow iska dulqaadaya yuu kolba warqad soo tuuri u leeyahay beeleblaan taageersannahay beeleblaan taageersannahay ma naag baa isagu ma naag la qabo guriga looga soo tegayba oo carruurta si ilaali layidhi waan soo dagaalamay awey mas-uuliyaddii isagu u qaada u leeyahay anuu hogaamiyaan ahay awey wuxuu leeyahay anigu waxaa weye hogaamiyaha ugu fiican baan 14 sana shan sana haddana uu sii qaadanayo mee awey jubbaland mee xaggee ku jubbaland ma kismaayo basa kismaayo keliya miyaa jubbaland meel walba oo jubbaland ka mid ah argagixisaa joogta marka laga reebo gobolka gadood dadkii lahaa ay xoreysteen awey kismaayo 5 kilomitir lagama bixi karo mee maxaa looga hadli laayahay axmedoobe marka waxaan leeyahay inaad hadashaay waxaa ka roon inaad aamustahay iska aamu gabadh gashaantee waxba ma dhaantide iska aamu intuu dhulkaadu sida yahay deegaanadaadu argagixiso haysato state house-kooda ay ka dhisteen madaxdii argagixisada ay joogaan caasimadii adiga aad waxa weeye madaxweynaan u hay aan lahayd ay joogaan caasimadii jubbaland inta ay argagixisada mas-uuliyiinteedu joogaan hadal kuma yaallo iska aamu inaad aamusto ayaa ka roon dulmi waxaa ugu filan shacabka reer jubbaland joogitaankaada aad kursiga joogto intaasaa dulmiba ugu filanba inta gacanta iyo dhibaatada aad geysatay iyo waxa weeye hagardaamada iyo hagrashada iyo waxa aad geysatay intaan la gaadhin joogitaankaada kursiga aad ku fadhidaa dulmi reer jubbaland ugu filan taasaa dulmi ugu filan marka iska aamu waa ramadaana intaa kuu dhaafi maayo oday soomaaliyeed baa tahay odayna adeerkayaa tahay laakiin dhibaato badan baad geysatay waxaa intaa iga keenay naftirkeeda bil ramadaan baa lagu jiraaye waxaan dareemayaa dhibaatada iyo waxa weeye hagrashada iyo gacan bidixaynta shacabka reer jubbaland ku dhacday eed ku samaysay ayaan dareemayaa oo aan la xaweed u yahayaa taas baa iyadoo ramadaan iga keenaysa inaan intaa ku idhaahdo intaa xataa kuma dhehen marka waxaa weeye waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho hadduu alaydmo dadaalaha ka socda shabeellada dhexe dagaallo xoogan baa socda duqayn baa socota oo argixisada lagu baxsanaya walow culayska ay soo saareen shabeellada dhexe uu yahay mid aad iyo aad u culus caasimadda jowhar ay godoonsan tahay muqdisho duleedkeeda ay fadhiyaan shabeellada dhexe iyo dee muqdishona waad ogsoontihiino waa deegaan isa saaran weye marka xaaladda adag uu ku jiro shabeellada dhexe iyo wixii kasoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alaydmo